John Bedel Bokassa ama Jean Bedel Bokassa asiga ayaa isku magacaabay magacaan, sidoo kale wuxuu isku magacaabay Bokassa koowaad. wuxuu dhashay sanadkii 1921 asigoona noolaa ilaa 1996. wuxuu ahaa keligii taliye aan jixin isla markaana 1966 ilaa 1979 gacan bir ah ku maamulayay dalka Afrikada Dhexe. wuxuu ku waajibiyay dalka yar ee Afrikada Dhexe nidaam imbaradori ah oo aysan taariikh u lahayn isla markaana aysan awoodin. imbaradoriyadu waa awood ama xukun ay hoos yimaadaan dawlado, gobollo iyo shacab kala duwan, waxayna u qaybsantaa mid sharci ah iyo mid si xoog ah loogu dhawaaqdo. Bokassa wuxuu sheegtay inuu yahay imbarador maamula dalka Afrikada Dhexe oo uu asigu imbaradoriyad inay tahay ku suntay. Bokassa wuxuu ahaa kabtan ka tirsan ciidankii gumeystaha Faransiiska markii ay Afrikada Dhexe madax banaanida heshayna wuxuu 1 January 1966 sameeyay afgambi maquunin ah asigoona ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha cusub ee Afrikada Dhexe. wuxuu ahaa mid in badan jecel imbaradorkii Faransa ee Napoleon Bonaparte asigoona gaaray xitaa heer uu sheegto imbarador. waxaa musalifay oo faqri uu soo wajahay dadka Afrikada Dhexe kadib markii uu xafladda caleemasaarkiisa ku bixiyay $80 milyan. wuxuuna sidoo kale taajka uu madaxa suran lahaa ku bixiyay $20 milyan. inta uu xukunka hayay shacabku waxay ahaayeen kuwa rucbi iyo argagax ku nool. wuxuuna ahaa Bokassa mid kormeera goobaha lagu cadaabo dadka ka soo horjeesta ama lagu tuhmo madax taagid. wuxuu lahaa sharciyo la yaab leh, waxaana ka mid ah qofka tuugga ah ee la soo qabtaa in laga jaro labada dhagood. wuxuu sidoo kale si bareer ah u dili jiray siyaasigii ka soo horjeesta asigoona meedkiisa u tuuri jiray xaasyo iyo libaaxyo joogay beer xayawaano oo uu asiga lahaa. wuxuu ahaa mid munaasabadaha iyo xafladaha uu qabsado laga cuno hilibka dadka, waxayna mar baahisay majalada Paris Match talaajado ay ka buuxaan meedad carruur ah. inta uu xukunka hayay arrimaha la yaab kale uu sameeyay waxaa ka mid ah in uu 1979 xabsiga dhigay boqolaal ardayda iskuulada ah kadib markii ay diideen in ay xirtaan uniformka iskuulka oo ay soo saari jirtay shirkad ay lahayd xaaskiisa. malaha go'aankan xaaskiisa ayaa lahayd. waxaa sidoo kale la sheegaa in uu gacantiisa ku dilay boqolaal carruur ah kolkii uu sii liicayay xukunkiisa, waxaana muddo yar kadib xilka ka xayuubiyeen ciidankii Faransiiska. kadib Bokassa wuxuu u dhoofay dalka Faransiiska, wuxuuna isku bedelay faqiir waayay wixii maal ahaa uu ku soo helay xoogga iyo boobka. waxaa sidoo kale faqri daran uu soo wajahay qoyskiisa, ayadoona warbaahintu mar baahiyeen mid ka mid ah carruurtiisa oo dukaan wax ka xadaya. wuxuu ku soo laabtay Bokassa Afrikada Dhexe, waxaana lagu xukumay xukun dil ah, balse muddo kadib waa laga qafiifiyay xukunka waxaana looga dhigay xabsi daa'in. waxaa xabsiga laga sii daayay 1993 wuxuuna geeriyooday 1996.